si loo ilaaliyo badqabka bulshada isla markaasina looga wacyigeliyo kahortagida caabuqa COVID-19 ayaa kulankan oo ahaa wacyigelin waxaa soo agaasimay maamulka degmada Hobyo. waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, agaasimayaal iyo sidoo kale maamulka degmada. Cabdullaahi Axmed Cali Faad maayirka degmada Hobyo waxa uu sheegay in bulshada loo baahan yahay inay qaataan tallaabooyinka la xiriira wacyigelinta ee kahortagida fayraska corona. cudurkan dhibaatada uu deegaanka ku haya ama dalka ku haya wax fudud maaha. maanta magaalada Hobyo dad badan ayaa waxa laga yaabaa inaysan dareensaneyn inuu cudurka hayo, haddana cudurka uu hayo. saaka waxaan tagnay isbitaalka degmada, waxaan la hadalnay dhakhaatiirta, barnaamijka dhakhaatiirta iyo waxa ay ka damacsiiyeen waa kala tashanay. waxaan la kulanay in warbixinta ay la siiyeen ka mid in uu jiro patient ama qof xanuunsan oo ay astaamihii ka arkeen. ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda ka badbaadiyo, laakiin waxaa muhiim ah oo aad muhiim u ah dadku inay fahmaan. qofka markaa la sheekaysto Soomaaliga wuxuu ku leeyahay war cudurka ilaahay waa run, ilaaha cudurka haya, caafimaadka ilaahay, laakiin taxadarka wax muhiim u ah. waxa intaani ku soo gaarina laga hortagaa. maxay ka dhibaysaa inaad gacmaha dhaqatid, maxay ka dhibaysaa inaad saabuun ku isticmaashid, maxay ka dhibaysaa haddaad heli kartid biyo aad ku dhaqan lahayd inaad gacmaha dhaqatid, waxay ka dhibaysaa malaha. agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Galmudug Cumar Axmed Sheekh Aadan ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay qaataan tallaabooyinka la xiriira kahortagida fayraska corona. walaalayaal cudurkaani waa cudur safmar ah dunida oo dhan, qabiil iyo deegaan iyo meel u gooriye ma jirto. kaliya wuxuu u baahan yahay in yacni tala saarashada iyo awoodda Rabbi ka sukow in la sameeyo dadaalkaas oo ah talooyinka ay bixinayaan bahda caafimaadka. ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Deeq Cabdi Maxamed. dhankan COVID-19 walaalayaalo dadkana maanta oo dhan kulli way dhahan ha laga taxadaro koortag baashan ka dawtag malaan koortagi leedahay. hadda baawur ama biyaal wadada soo istaagan ma dhaysid haduu igu dhaco way qorneeday wadada waa ka leexanay. kan waxyaalo yariis ugu taxadari kartiin inay gacmaha la dhaqdo, inay markii la hindisay iyo la qafacayo xusulka lagu qafaco ma fahamino. dhanka kale tan maamulku waxa ka codsanaya in shacabka waliba gudoomiyaha xuda uu sameeynaa insha Allah biyo joogto inay Hobyo la helo sidii gacmaha loo dhaqitaanka iyo nadaafada loo badiyo. haddii nadaafada lagu adkaado cudurkan waa laga raynaa haduu la idmo. bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa soo dhaweeyay wacyigelinta loo soo jeediyay iyadoo sidoo kale kulankan ay goobjoog ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Galmudug.